ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa deegaano hor leh oo dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe kala wareegay Al-Shabaab. Saada Said Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaano dhaca bariga degmada Balcad ee gobolkaas. Ciidamadan oo uu hogaaminayo xildhibaan Cismaan Xaadoole ayaa gudaha u galay deegaanada kala ah Jameeco Misra Maqdis Baardheere Gaashaanle Tugaare Mubaarak Doonka Maxaacolow iyo Mansaale oo hoostaga degmada Balcad. Dhanka kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa war ka soo saartay howlgallada ka socda gobolada dalka iyadoo shaacisay xilliga gobolka Jubbada Dhexe ay ka bilaabanayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. saad la socotaanba dalka waxaa ka socday howlgal military oo ay ka wada howlgalayaan si wada jir ah xogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta dowlad goboleedyada. howlgalkaas waa socdaa meelihii uu ka bilowday si fiican buu uga socdaa, guulo badanna waa laga gaaray. gobolada kale dowlad goboleedyada kalena abaabul iyo diyaar garow ballaaran ay ku jiraan. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga waxay joogaan koonfur galbeed. waxaa la qorsheynayaa la diyaarinayaa howlgalkii laga bilaabi lahaa deegaanada koonfur galbeed ee cadowga uu gacanta ku hayo sida Tieglow, Rabdhuure, Yeed iyo wixii lamid ah. Jubbaland diyaar garow bay sameeyeen. waxaa la xareeyay ciidan lagu xareeyay meesha la Raskamboni, Dhobley iyo Kismaayo. ayaguna waajibaadkooda waxa weeye oo ay doonayaan howlgalkaas kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya ciidamada qalabka sida inay howlgalkaas ayaguna saas oo kale ay bilaabaan bay rabaan oo ay ka bilaabaan degmada Jamaama, degmada Xagar iyo degmada Badhaadhe. gobolka Jubbada Dhexe kulligiis waxa haysta cadowga, laakiin waxa insha Allah noqon doontaa dalka marka intiisa badan la xoreeyo in la isugu tago aakhirka ayada ugu dambeyn doonto gobolka Jubbada Dhexe in laga xoreeyo cadow. gobolka dowlad goboleedka Hirshabeelle abaabul xoogan baa ka socda. barihii hogaaminta iyo taakuleynta waa la sameeyay. xuduudda Shabeellada hoose ilaa iyo Shabeellada Dhexena ciidankii ka howlgali lahaa iyagana waa loo diyaariyay. waxaana howlgalkaas abaabulkeedu ka bilowday degmada Cadan. meelaha la kala geeyay ciidamadaas meelaha ka howlgalayaan waa shaqo howlgalka ciidamada sir u ah, waxaana iska kaashanaya howlahaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo xogaga kacdoonka shacabka. magacaas anaa hadda iri oo Macawslee baan ka xishoonaya inaan ku dhaho, laakiin dawladdu magac munaasab ah ku haboon ayada aakhirka bixi doonta. xogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed anaa hadda iska doortay oo ereyga Macawslee ah ku bedelay, laakiin magac dawladdu ay bixisay maaha. dawladdu ayada u dooran doonta magaca munaasabka ah oo ku bixi doona. howlgalkan dambe oo hadda gobolada diyaar garowga ay ku jiraan wuxuu bilaabmi doonaa toddobaadyo gudahood ama toddobaad gudihiis uu bilaabmi doonaa. markuu hal mar bilowdana insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa cadowga ummadda Soomaaliyeed uu dalka ka zuulo. muddo fara badan oo 18 sano gaaraysa iyo dadkan dhibaateynayeen shacabka Soomaaliyeed gumaadayeen, dhacayeen, burburinayeen. dulmiguna ma raago. dulmigu intaas imtixaan buu anaga na haystay. insha Allah tacaala taasna waa ka gudbaynaa. waxaan rabaa inaan dadka ciidamada iyo xogaga shacdoonka kacabka iyo dowlad goboleedyadaba aan ku sheego Al-Shabaab waxay bilaabeen qafaal. waxay ka deegaanada ay joogaan bay ka bilaabeen dhalinyarada inay qafaalaan oo ay xoog dagaalka u galiyaan. dhalinyaradaas waxaan u sheegaynaa ciidamada qalabka sida oo Soomaaliyeed iyo xogaga wadaniga ah, xogaga kacdoonka shacabka Soomaaliyeed labaduba diyaar waxay yihiin inay soo dhaweeyaan. nabadgelyaad helaysaan waa la idin soo dhaweynayaa. isdhiiba fursadda nin walba oo fursadda aad heli karto aad kaga fakan karta kaga fako ciidanka isu dhiib. walibana marka howlgalladu socdaan bay u fududahay. isdhiiba ciidamada waxaan u sheegaynaa siyaasadda dowladda Soomaaliyeed waxa weeye ninkii isdhiibaya in la soo dhaweeyo, ninkii dhaawacmana in aan dhibib tirin, xaasas iyo caruur loo nisbeynaya hadday jiraan Al-Shabaabna inaan la dilin, qof aan falan garaso ku jirin oo markaa dembi ku jirin. laana anagu dowlad baan nahay, ummadaas hooyadood baan nahay, inaan cadowgaas naga qabsaday ka soo fujino ayaan doonaynaa. waxa shaqadaas wataana waa koox yar oo uu isticmaalaya cadow dahsoon oo ummadda Soomaaliyeed qarannimadeeda, dowladnimadeeda iyo horu socodka